afkaygu amaanta ufudu daaye afkayguna amaanta gacalo ufudu daaye ما شاء الله السلام عليكم أصحاب شرفت الميلو باجوكتان iyo si walba doo daawanaysan halka daawanaysaan waa marqaati TV ninka in la hadlayana waa bidhaamiye been mashaayga barqa banaanka tagay waa idin sheegay inaan idin soo gudbi doono warbixino la falgalaya noloshiina iyo nolosheena iyo tan Soomaaliyeed maanta waxaan ka wada hadlaynaa waa sidee qabyaalada heerka qabyaalada Soomaalida markay qurbaha joogaan waxa maanta marti ku ah barnaamijkeena mid kamid oo adiga aad ka dharagsantahay magaciisa anigana aan ka dharagsanahay waxa uu qabtana aad in badan baraha bulshada ka aragteen sad qabyaaladid gudoomiye soo dhawaad marka hore waa maasan tahay walaalkay aad ma aragtay ugu niga mahadcelinaa sida fiican aad igu soo dhaweysay meeshaan waa ku dhawaad maasan tahay aad qof walba oo daawanaya markiiba wuxuu ka dareemayaa astaanta mataqaanaa dhaqanka Soomaaliyeed uu ka dareemayaa gudoomiye waxaan markaa inaan bal wax uun yar bal nooga taabato waa sidee heerka qabyaalada dadka Soomaaliyeed markay qurbaha yimaadaan runtii sida ogtihiin sidaan wada ognahnaba waxaa jiro 30 sano ugu dambeeyay in aan la daala dhaceyno dhibaatada ay leedahay qabyaalada run ahaantii marka aan wadankeena aan ka soo tagnay oo aan soo doonanay dhibaatooyinka wadanka jira qabyaalada kamid tahay dad badan kumanaan Soomaali ah ee wadankii ugu soo tagay dhibaato lagu dhibaateeyay ama lagu midabto kooray qabyaalada markaan wadankan imaanay waxaan dareemeynaa inay tii wadankii jirtay mid ka badan inay wadankan wadamadan qurbaha Yurubtan Sweden Norway iyo meelahan runtii waxaad arkaysaa soo dhaweynta lagu soo dhaweynaa marka hore in lagaga bilaabayo yaa tahay gobolka ka imaaday qof walbana ma aragtay oo kugu soo jiidanayo qabiilka taa ama dadka taa kugu soo dhaweynayo aan yacni Soomaalinimadii iyo wadanimadii ayna si jirin marka taasoo kale ka kamid ah bal markaad nidaamkaasi sida qabyaalada mataqaanaa dadka loogu fogeey lahay oo Soomaali ahaan la isku caawi lahaa qolahaasi markaa ku jirtay maxaa kamid ah waxyaabaha kuugu adkaa oo isleedahay way ku taabteen dareen ahaan runtii waxaan sameeyaa safaro badan runtii sadaq geedi socodkayga wadamo badan aan maaragtay kasoo bilaabay Belgiumka iyo Faransiiska Holland iyo wadanka deganahay Talyaaniga marka aan u bareero in aan dadka aan weydiiyo oo aan dhaho xilligii waa laga baxay qabyaalada sidee aan uga baxnaa Soomaaliya hadaan nahnay anaga dhalinyarada waxaan nahnay boqolkiiba 75 waa dhalinyaro marka dhalinyaradan la kulmaa mar walba odayaasha dadkii hore talooyinka ka qaataa biskaleele laakiin waxaan ku gobaabiyaa sidii u bedeli lahaayeen yani noloshooda dalkeena iyo caruurteena aan ugu fikir lahayn bal markii Soomaaliya laga soo tagay wax Soomaaliya laga soo wado waa burbur iyo qabyaaladii waxay keentay bal markaad sida meelahan oo kale cafeteria meelaha waxbarashada kale aad joogto dadka Soomaalida markaad hadalladooda akhrisato misdii kartaa waxa wali qabyaaladu way ka dhadhamaysaa maadaama imaadeen dalal xor ah waxbarashadii waxna qabiil aysan ka jirin aad ugu dhadhaminaysaa sababtoo ay tahay waxa arkaysaa iskuulaadka kale markii la joogo dhalinyarada waxay ku shaqeystaan way siyaasadeeyeen way bedeleen marka inta ku leeyahay qabiilkaaga yaa waxay ku leeyihiin gobolkee ka timid marka taasoo ay ka micno tahay qabiilkaaga yaa haddii aan dhaho aniga maanta waxaan ka imaaday galmudug aan ka imaaday reer hebel adiga lagu leeyahay marka meel walba qabyaaladina la gashay runtii bal marka maxaad kala socotaa waxaan arkay xataa wadaadadii iyo masaajidadii xataa waa la isku haystaa maxay salku ku haysaa markaad iyo kale aad fiiriso kale wallahi runtii waxay salku ku haysaa dhibaatadii wadanka uu kaliya naga keentay haddii sportkii oo galay qabyaalad haddii oo ay gashay qabyaaladii masaajidka waa mid hadda aad ugu liidana waay insha Allah gordho waxaan u socdaa shirarka dhacayo Norway lagu hadlaayo dhibaatada qabyaalada marka
mar walbaba waxaan ku fikirnaa sidaan u bedelno jiilka hadda sidaan hadda ognahnay masaajidka Oslo ku yaalo ugu weyn runtii masaajidkii dadka soo galeen taasna waxaa u sabab ah odayaashii hore ayaa maaragtay keenayo dhibaatada ay sii wadaan aan iska dhaafi karin waa waxay u barteen waaye marka dhalinyarada waxaan ku gowaabinaa aan u sheegnaa maanta ana adigu xataa kuma aqaani marka waa inaan si Soomaalinimo ah aan mar walba aan ugu talaqaadnaa fikirkayga ana waan fikir leeyahay adna fikir leedahay marka waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ha ka fiijignoodaan qabyaalada bal marka Soomaaliya dadka joogo kala tusaale waxay aaminsan yihiin dadka Soomaalida qurbaha aaday inay dhaqan wanaagsan oo waxay tahay dimuqraadiyadda waxay tahay iyo wax wada lahaanshaha inay barteen marka Soomaali badan la kulantay ma aaminsantaa marka dadkan qurbaha joogo waxay noqon karaan badbaadinta Soomaaliya aad iyo aad dhalinyaro fara badan aan maaragtay la soo kulmay dhalinyaradaasna markaan la kulmay waxaan ka dhehsanaa wajidooda in isbedel aan heli karno sababtoo tahay waxay arkeen dhibaatada qurbaha ay leedahay runtii dhalinyaro waxaad arkaysaa wadanka mardhow ka soo haajiray dhibaatada ay la soo kulmeen waxay soo mareen saxaraha Liibiyo Talyaaniga dhibaato fara badan taalo yaani micnihii dhibaatada leedahay qabyaalada way ka dhacday marka hadda way bislaadeen marka hadda waxaan u bislanahay in aan joojino qabyaaladii insha Allah bal marka hadda wali waxa ay jirto siyaabooyin kala duwan magaaladan Göteborg ama magaalada Sweden ama wadanka Sweden ama wadamada kale marka aragto lokaalada xarumaha dadku Soomaalida jaaridaha ay kala leeyihiin deegaan iyo urur oo waxa loo daga hab qabiila marka iyadoo qatar noocyada adiga ka dareemi karaysaa runtii barnaamijkaas aad aan ugu hadlay waxaa jirto Talyaaniga waxaan ku noolnahay waxaa lagu nool yahay buundo hoosteeda waxaa iskugu imaaday intaasoo dhalinyaro Soomaaliyeed oo maanta hoy aan haysanin nolol aan haysanin maraan ka hadlaa jirto hadalka sheegiisna waa sax runtii magaalo waxaan tagay Nyköping la dhahayo magaalo waxaan tagay Kraskow la hayo Sweden wadanka Örebro u dhahay waa tuulo yar adiga yaani waxaan ku tilmaamaa magaalo yar waaye cadalo kala ku tilmaamaa waxa ka dhisan ilaa 6 jaalidood ka dhisan oo Soomaali ka dhisan marka waxa lagu leeyahay jaalidan reer hebel waaye tan reer hebel waaye yaani taas waxay ku sheegaysaa qabyaalada inay aad ay noo dhaxlaysatay ugu dambeyn dadka Soomaalida qurbaha joogo maadaama aad khibrad badan aad u leedahay waxyaabaha ay haystaan iyo qaabka uga bixi karaan anako fursadaada ka faa'iideysanayna maxaad ku baaqaysaa waxaan u baaqayaa inaan midnimo aan sameeyno aan isku duubnaano run ahaantii dadkeena Soomaaliyeed run ahaantii waa la jecel yahay wadamadan Yurubtan meel walba aad joogno sharaf ka leenahay xushmad yaani ajaanibto kale lama dimanayn haddana sidba ugu liidanaa sababta ugu liidan waxay tahay waxay ku dhaqmaan qabyaaladii dalkooda soo burburisay ay meeshaan keeneen halkaas cilad leeyihiin halkaas cilad hadii iska fogeeyaan yaani horumar dhinac walba taaba karna maanta dhibaatadan haysto wadamadan qurbaha ka jirto caruurteena ayaa maaragtay gaaladii gacmahooda qaadanayaan waxa arkaysaa gabdho yar oo caruur dhaleen oo markay dhalaanba laga qaadanayo marka hadii aan midowno gacmaha isqabsano waxtar fiican aan sameyn karnaa wadankeena wax badan oo karnaa magaalada Göteborg kale hal jaalid ay sameystaan oo kale halkaas caawi karto aad weyn magaalada Göteborg magaalo weyn waaye ma sha Allah dhalinyaro far badan maaragtay ku nool darad marka la soo dhaweynay dhalinyaro fiican oo sharaf leh ay soo dhaweeyeen aad u maasiin Maxamed Tahliil Ahmed iyo Xuseen ma sha Allah marka waxay wadaan dhalinyaradaas u jeedid isku xirka magaalada wadaan sidii waxay ka fikiraan hal jaalid maraan soo wareystay wixii ka fikiro hal jaalid in isku keenaa marka insha Allah waxaan rajaynayaa ayagana guul rajayna aad iyo aad u maasan yahay waxaan filaynaa waraysigan aad uga dharagteen baahiyaha ama waxa ay qabaan dadka Soomaaliyeed oo qurbaha jooga halka wili nagala socoteen waa Markhaati TV sidaas iyo nabadgelyo inta barnaamij mid kaamil la mid aan kulmi doono ma sha Allah Markhaati TV waa kaliya leh TV-ga hadda dhalinyarada Soomaaliyeed aad u jecel yihiin runtii marka waxaan ka codsan lahaa bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay ku soo xirmaan Markhaati TV runtii ma santiin aad iyo aad ma santiin